kaliya groupka kan waa soo dhex gashay aduun baa ka dhex duwan maxaa ku soo dhex galiyay dhammaan waa familkaygii waa ilmaadeeraday adeeraday eedooyinkay maantiin reer hal mar IT ka wada baxay ya maxaa ku wada dooratay faculty-ga wallahi garamay laakiin anagu waa jecelnahay yahay qisada kale cajiibka ah baa waxay tahay maxamedow IT baa u wada doorteen maxay tahay sababtu runtii horta waa la isku xantaa anagu waxaan u badanahay xagga IT-ga maadaama maanta teknolojiyadda ay sii korayso maalin maanta ka dambaysa wixii la isticmaalayana ay tahay teknolojiyad marka waxaan door bidnay inaanu xagga IT-ga xooga saarno maadaama aan nahay family ka soo jeeda ganacsigooda u badan yahay xagga IT-ga aad iyo aad baad u mahadsan tahay way yar tahay in hal maalin ay wada qalin jabiyaan family gaaraya 10 qof oo waliba hal kooras ama hal faculty wada doortay magacaaga magacaygu waa maxamed axmed xamiid waxaan ka qalin jabinayaa Africa College kulliyadda IT-ga halka maanta waxaan la qaybsanayaa hambaliyada arday aad fara badan oo ka qalin roganaya kulliyado kala duwan marka waxaan leeyahay hambalyo waxbarashada saa oo sii wadaynaa inta ku sii jirmayna marka muhiimadu maaha macna inaad goon xilatid iyo amba suud xilatid amba macna wax kaada lagu xiro muhiimadu waxa weeye waxaad baratay waxa meesha kala tagtay muhiimadu waa intaan waxa meesha ku tagi in inta la soo waday sanadii la bilood sanadii laba bilood haye kulliyadda IT-ga tahay kulliyadda IT-ga soo dhow magacaaga waa dhowahay magacaaga Cabdicasiis Maxamed Faarax Cabdicasiisow bal waxaan kugu soo dhaweynayaa marka bal maanta dareenkaaga maalin farxadeed bay ku tahay bal nala wadaag aad iyo aad baad mahadsan tahay ficlow waa salaamaya RTV-na waa salaamaya dareenkayga maanta lama soo koobi karo anigoo marka hore magacayga ku bilaabay Cabdicasiis Maxamed Faarax marka hore waxaan hambalyeeynayaa oo aan farxadda la qaybsanayaa dhammaan ardayda Africa College oo aan soo wada soconay muddo sanad iyo badh oo kulliyadda IT-ga aan intaas oo dhan wada wadnay waayo intaas oo dhan dhiirigelin iyo aan intaas oo dhan aan wax ku wadno aan halka ku keenay macallimiin aad iyo aad u hagar baxday oo tayo leh waa naga heshay oo heer jaamacadeed oo ilaa heer master marka macallimiintana dadaalkooda iyo iyaga la'aantood halka ma soo gaadhneen aad iyo aad marka koobaad waxaan u hambalyeeynayaa macallimiinta si gaar ah iyo si guud macallimiinta aan u hambalyeeynayaa waxaan leeyahay jiro oo jooga waayahay aad iyo aad adoo munaasabada farxadda ka faa'iideysan doona iyo halka kan wax fariin uga diraysa halka kan waxaan fariin uga dirayaa ardayda Africa College dhammaan ama maamulka Africa College ardayda iyo macallimiinta tan dhigata iyo ardayda iyo mid ka baxday inta waxaan hawada u marinayaa salaan kale iyo laaba macallimiintana aad iyo aad baan ugu hambalyeeynayaa waana salaamayaa ardayda ka dhigata Africa College gaar ahaan kulliyadda IT-ga halka maanta munaasabada waxaan uga faa'iideysan waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda ka dhigata Africa College waxaan leeyahay hambalyo waayahay aad iyo aad baan groupkiina tan oo dhan IT baa wadatay IT baan u wada meel iska saarteen aad iyo aad haye ma halka ma ku joojin doontaa waxbarashada mise waa ka sii wada doontaa ma ilaa waxbarashada sii wada ilaa heer ka gaadho PhD insha Allah mustaqbalka maxaa rajaynaysaa mustaqbalka waxaan rajaynayaa inaan noqdo xildhibaan noqdo insha Allah xildhibaan halkee laga soo doorto gobolka Sanaag aad iyo aad baa mahadsan tahay waa tahay weli waa sii soconnaa walaal gabadha tan waa ka duwan tahay hablaha kale soo dhow walaal waa dhowahay magacayga waa Asi Cabdiqaadir Xasan kana qalin jabin waa ku soo dhaweynaya marka koowaad page-kayga ku soo dhaweynaya Ficil Burkuud bal maanta maxaad ka qalin jabisay waan ku dhawaayay page-ka Ficil Burkuud aad baan halka uga salaamaya maanta waxaan ka qalin jabiyay kulliyadda nursing-ka aniga caafimaadka haye meel baa iska saartay nursing-ka haye imisa soo wadi waxaan soo waday muddo 2 sano haye waayahay bal maanta maalmaha kale maxay kaaga duwan tahay bas maanta maalmaha kale waxay iga duwan tahay waa maalin aad farxad badan maanta waa maalin aan in badan sugaayay sidoo kale waxaan u hambalyeeynayaa dhammaan familkayga garbahayga taagan sidoo kale waxaan u hambalyeeynayaa dhammaan ardaydan sugalaaska ahayn oo clinical nursing-kayga la baxday maadaama haddana halka qof igala joogin haddana salaam baa hawada u marinaya dhammaantood kaliya groupka kan waa soo dhex gashay aduun baa ka dhex duwan maxaa ku soo dhex galiyay dhammaan waa familkaygii waa ilmaadeeraday adeeraday eedooyinkay familka oo dhan waa wada qalin jabiseen maanta wada qalin jabin aad iyo aad baad mahadsan familka oo dhan oo wada mahad celin waaya aad iyo aad baad mahadsantii waa family dhan oo maanta wada qalin jabiyay hal mar soo dhow walaal magacaaga waa Samiir Ibrahim Maxamed waa dhawahay Samiir waa kugu soo dhaweynaya bal maanta dareenkaaga nala wadaag maanta aad baan u faraxsanahay maadaama aan ka qalin jabiyay waxaan muddo badan soo sugayay sidoo kalena waxaan mahad celinayaa waalidkayga oo inta ay soo gaarsiiyay oo garab taagan ardaydana waa u hambalyeynaya
ودوه مقعي ومدينة إبراهيم محمد كان من أرضي كقلن جبسي ساكا أفريقيا كوليج فرحد ويميتين ما نقصوا موضوع أرضي كقلن جبسي جارهن كلية أيتيجا سلوا كلو حن هم بريء ودري على ما أرضي أفريقيا كوليج جارهن كلية أيتيجا سلوا كلو حن هذه أدو مهد علينا يا معلم كي عبد الفتاح إسماعيل واحد ودلال وين وأنت بدنا نسوي جارسية سلوا كلو حن هذه أدو مهد علينا يا هو يضي أو يوم بدنا نقرب يسوي استاكس نيسين محمد سبتان كي ما كله هاي مقعي ونعيمة عبد القادر مر نعيمة مركب كوباد وكسور دوينيا بالمانتا dareenkaaga والله dareenkayga aad buu farxad baday maadaama aniga family-gayga aan wada qalin jabinay farxadana wada qaadanay waayahay way yar tahay in family intan la eego kale hal maalin wada qalin jabiya maxaa sababay baas dhihi kartaa ya way yar tahay family inta tan la eego dhan in hal maalin wada qalin jabiyaan waqtiga noo saamaxay hay ina hal mar wada qalin jabisaan oo waliba intii noo isla wada eegtaan waayahay aad iyo aad baad mahadsan tahay weli waxaan wadaa weli ma dhammaan waa socotaa soo dhow wadhawahay magacayga Saare Saciid Ibraahim Saare uu soo dhaweynaya wax ku soo dhaweynaya bal maanta dareenkayga aad buu farxad badan yahay maadaama ka qalin jabiyay Africa College kuliyadda IT-ga dhammaantiin reer hal mar IT ka wada baxay maxaa ku wada dooratay faculty-ga والله قرمي لكن أنا قوة شعلنا يعني أنت نوع ولا شعشي أوكا وين هي حاجة فرينو قدرس أنا قدر يا هو يا باه يقصوا قريب استاجي كير كرمان تنتاجنا هاي وأنا كم هتسنتي وين واتهاي عدر طلنا وحنوسي جود بينا دنكا والدين تجرب كي جمدي جوا حد شو جمد كم ده فاميلي جوا قلنا تبيه والدين تودي أن سودو مركب كواد مقعة وندوا مقعة محمد إبراهيم محمد waa ku soo dhaweynaya marka koowaad waxa ku soo dhaweynaya page-kiga ficil media bal maanta family-ga oo dhan baa qalin jabiyay maxay kaaga dhigantahay ficil media aad baa maasan tahay waan ku mahad celinayaa runtii halka waxaan hambaliyo balaaran uga dirayaa dhammaan family-ga iyo inta ka qalin jabiyay college Africa College ay ka mid yihiin garbaha taagan oo family-ga ka mid ah haddaan gees ka soo bilaabo Maxamed Axmed haddaan ku xijiyay Cabdi Casiis Caamil Ibraahim Saamiye Kadawe waxaan kaloo ku xijiyay Samiire Ibraahim Madiina Ibraahim Saare Saciid Naciima Cabdi Qaadir dhammaan waa wada family waayahay qisada kale cajiibka ah baa waxay tahay Maxamedow IT baa u wada doorteen maxay tahay sababtu runtii horta waa la isku xantaa anagu waxaan u badanahay xagga IT-ga maadaama maanta teknolojiyadda ay sii korayso maalin ka dambaysa wixii la isticmaalayna ay tahay teknolojiyad marka waxaan door bidnay inaanu xagga IT-ga xooga saarno maadaama aan family ka soo jeedo ganacsigooda u badan yahay xagga IT-ga iyo horumarinta ganacsiga aan ka qayb qaadanayno marka maadaama wixii ay yihiin wax lagu soo horumarinayo IT-ga waxaan maanta dooranay IT iyo caafimaad inta waan isku jirnaa marka ilaahay xamdigiisa waxaan ugu mahadnaqaynaa maanta ilaahay inoo soo gaarsiiyay madashan qiimaha badan ee ay ku qalin jabinayaan ardaydaas oo tiradoodu dhan tahay 8 qof iyo dhammaan ardayda ka qalin jabinaysa Africa College aad baan ugu mahad celinayaa anoo ku hadlaya afka waalidiinta kuwaan waalid u ahayo kuwaan walaalnahay kuwaan ilmadeernahay intaba waan ugu mahad celinayaa waxaan rajaynayaa mustaqbal iyo baraaro wanaagsan insha Allah waayahay aad iyo aad baad mahadsantahay dhanka hooyooyinkan ku sii socon doonaa soo dhow hooyo magacaaga waayahay marka koobaad waa kuwa dhammaan family-gaaga oo wada hambalyeynaya bal maanta jawigaaga ما شاء الله درين عادي هذا فرحة بدن أنت لو ولا أهل كيجيا وحكوشة إن أنت يدي ولا الله يبقى كشرة المدرسة يبقى كشرة كون إددا يبقى كشرة ما شاء الله مركا عادي أدن مرتب فرح سنة يجينا أدن وهم إن شاء الله وهي عادي أدن ما حسن تاي إن ولي واسيس عنا فاميلي اللي جمر دمانا ما شاء الله إن سودو مقعد سين محمد سعيد عربي وحنوهم بليين يا أرضي ذكر الدوان وأنا أييو هويو dhammaan kulli hambaliyo ma leeyahay maanta farxadayda aad iyo aad lama soo koobi karo aad baan faraxsan waayahay aad iyo aad baad mahadsantiin dhammaan annana hambaliyo aanu leenahay bahda ficil media la socod wanaagsan dhankii familiyada baan ku soconnaa waalidiintii baa halka kan safan oo dhammaan da'yarta mustaqbalka soo baxday ah dadkii soo barbaariyay waa tahay soo dhow hooyo marka koowaad magacaaga magacaygu هذا محمد فارح marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa ficil media marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ardayda qalin jabisay maanta oo family-ka kamid ah dhamaanteed waxaan rajaynayaa mustaqbal wanaagsan hambaliyo baan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay laana maanta maalin iga duwan oo maalin dhammaan family-gaygii ay tirada inta ay ka qalin jabiyeen hambaliyo baan leeyahay hambaliyo aad baan ugu hambaliyeenayaa iyagana waxaan rajaynayaa mustaqbal wanaagsan waayahay aad iyo aad baad mahadsantahay wali waa sii soconnaa soo dhow magacaaga العرامة يوسف ويان maanta maxay kaaga dhigantay maanta waxay ka dhimantay maalin aad u farxad aydu maartaan la dareemi karin waalidiintii waxaan waalid u ahay
iyo waxaan waan maaragtay wada faamiligii dhammaan ah ayaa meeshan jooga oo wada qalin jabiyey markaa si wanaagsan ayaan ugu faraxsanahay hambalyaan leeyahay waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay haye soo dhow magacaaga magacaygu waa nuuro ibraahim maxamed haye nuuroy bal soo dhow maanta dareenkaaga ka war maanta mar haddii faamiligii oo dhan wada qalin jabinayo maasha allah maanta dareenkayga aad lama koobi karo waxaan ka qalin jabinaya walaalahay waxaan waalid u ahay waxaan eedo u ahay waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo cilmiga barateen ilahay idinku anfaco waayahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin anna dhammaantiin waxaan idin leeyahay faamiligow hambalya way yar tahay in hal maalin ay wada qalin jabiyaan faamiliga intaa tira leeg ficil burkud dhidhi RTV